weligaa ma ku guuldareysatay inaad qaadato ama aad koobiyeysato xog ama macluumaad ku daabacan website? haa, way dhacdaa xilliyada qaar. maxaa yeelay maamulka mareegta ama website-ka ayaa xanibaad saaray falalka noocaas ah oo diiday in la qaato xogta ku daabacan website-kiisa, isaga oo xiray ama balogareeyey inay shaqayso waxa loo yaqaano right click functionality ee website-kiisa. haddaba xogtaas ama macluumaadkaas muhiimka ku ah sideed kaga koobiyeysan kartaa ama aad ku heli kartaa? waxaan muuqaalkan kugu tusi doonaa 2 hab oo lagu furi karo website-yada iska xaniba qaadashada macluumaadka. nala daawo muuqaalkan si degan ula soco hababka aan mari doono. haddaba si aan u furno xogtaas naga xiran, aan galno Chrome-ka ama browser-ka aan isticmaalayno. marka ugu horeysa aan fiirino mid ka mid ah website-yada laga xanibay in laga koobiyeysto xogaha. waxaan tusaale ahaan u soo qaadan doonaa website-ka loo yaqaan Al-Najax. website-ka Al-Najax waa mid ka mid ah website-yada afka Carabiga ku qoran, luqadda uu ku rabo ku qornaado. waxaan fiirinaynaa ciwaanka ugu horeeya ayaan klik ku siin doonaa. kadib waxaan fiirin doonaa xogta in loo ogol yahay iyo in kale. marka aad select gareyso ama aad highlight gareyso kadib, waxaad isku daydaa inaad koobiyeysato oo right click dheh. ma ogolaan doono naga diidaya. haddaba sideen u xalinaa? waxaan u xalin doonaa 2 hab. midka ugu horeeya waxaa loo yaqaanaa manual blocking JavaScript, kaas oo aan ku tusi doono halkan. marka aad joogto Google Chrome, fiiri dhanka midig, waxaad arki doontaa 3 calaamadood. 3daas calaamadood ayaad klik ku siin doontaa, kadibna waxaad tegi doontaa meesha ay ku qoran tahay settings. markii aad ku dhufato settings, waxaa kuu soo bixi doona qoraallo ciwaano oo kala ah ka muuqda dhinaca bidix ee Chrome-kaaga. waxaad ku dhufataa halka ay ku qoran tahay privacy and security. markaad halkaas ku dhufatid, waxaa ku hor imaan doonta xogtan ilaa iyo 5 qodob ka kooban. waxaad ku dhufataa qodobka 4 oo ah site settings. markii aad doorato site settings, waxaa kuu soo bixi doona xog ilaa iyo dhowr step ka kooban. waxaad fiirisaa qaybta ay ku qoran tahay contents. kadibna waxaad ku dhufataa halka ay ku qoran tahay JavaScript. marka aad ku dhufatid, waxaa kuu soo bixi doonta xogta shaashada kaaga muuqata ee ah block and allow. okay, annaga danta hadda leenahay waxa waaye website block gareysan inaan furanno. waxaan ku dhufan doonaa halka ay ku qoran tahay add. markaan ku dhufanno, waxaan u laaban doonaa website-kii Al-Najax. kadibna waxaan soo qaadan doonaa URL-kiisa ama linkigiisa. marka aan soo qaadano, copy ayaan leenahay, waxaana keeni doonaa boxkii inoo furmay. waxaana ku basti gareynaynaa ama aan ku dejin doonaa halkii banaaneed. kadibna waxaan dhihi doonaa add. halkaas waxaa noogu soo biiray ama soo galay website-kii Al-Najax linkigiisii. aan fiirino, ana ku laabano website-kii Al-Najax inuu furmay iyo in kale. refresh ayaan u diraynaa. markuu saan u soo kaco kadib, waxaan highlight garan doonaa xog ka mid ah xogta website-ka. kadibna waxaan ku samayn doonaa copy. sida idiin muuqata way inoo furmatay. waxaan awood u yeelanay inaan koobiyeysano ama aan qaadano, annagoo u xusi doona ama tixgelin doona xuquuqda ama copyright-ka. okay, aan fiirino habka kale. haddaba aan ka tirno meeshan maxaa loo yaqaanaa si aan mar labaad ugu tusaaleyno website-ka Al-Najax. aan ka remove garayno ama aan ka saarno. waan ka saarnay website-kii, kadibna waxaan dib u refresh garayn doonaa website-kii si aan u ogaano in weli uu furan yahay iyo in kale. haddaba fiiri, wuu xiran yahay oo ma furmaayo. habka labaad aan ku xalin doono ayaa wuxuu noqon doonaa enable copy Chrome extension. marka ugu horeysa, waxaad soo gashaa Google Chrome-kaaga ama maxaa loo yaqaanaa Google searching-ka. kadibna waxaad ku qortaa enable copy Chrome extension.
kadibna waxaad kusii dhufataa midka ay ku qoran tahay enable copy Chrome web store oo uu leeyahay Google Chrome-ka. marka aan saas ugu dhufano waxay noo soo bixi doonaa wajhadan hore ee idiin muuqata. halkaas ayaan waxaan ku dhufan doonaa add to Chrome meesha ay ku qoran tahay. marka aan ku dhufano wuxuuna siin doonaa boxkan ay ku qoran tahay add enable copy. halka hoose ayaan waxaan kusii dhufan doonaa add extension. markaan add extension ku dhufano halkaas ayaa waxay inoogu soo biirtay calaamad tick ah oo markii hore ay noo saarneen, micnaheeduna yahay in la ogolaaday in loo yaqaanaa extensionka lagu soo daro ama koobiga lagu soo daro Chrome-ka. okay, aan dul tagno xogtii ama website-kii aan u baahnayn. marka aan saan yeelo waxaan furi doonaa meeshaas extension ay ku qoran tahay, kadibna waxaan allow dhihi doonaa ama aan ogolaan doonaa ama loo yaqaanaa biingarayn doonaa enable copy. kadibna waxaan highlight garayn doonaa xogta ama loo yaqaanaa wixii aan rabnay inaan koobiyeysano. kadibna waxaa inoo furmi doona ama aan koobiyeysan doonaa xogtii aan u baahnayn. waad ku mahadsan tahay daawashadaada.